Sarkaalka booliiska ah ma raaco xeerarka gebi ahaanba. Dembiile ayaa qafaashay dad, laakiin sarkaalka si caadi ah ayuu ugu qaybiyey barafkaha shaqaalaha kale. Dembiilaha wuxuu dareemayaa in la ceebeynayo. Waa wax cajiib ah. Sixiroolaha oo dhan. Ninka keliya ma sii wada qaybinta barafkaha, laakiin wuxuu xitaa dembiilaha u sheegayaa inuusan degdegin. Dembiilahana si buuxda ayuu u ceebowday, markaas ayuu sheegay inuu leeyahay qaraxyo jidhkiisa iyo dhismaha oo dhan. Laakiin ninku weli wuu degan yahay. Kadib wuxuu fuulaa saqafka wuxuuna weydiiyaa dembiilaha haddii uu doono baraf. Dembiiluhu wuxuu ku leeyahay inuu marka hore dharka iska tuuro, markaas ayuu amray inuu gacanta isugu xiro taangiga biyaha. Kadib markii uu xaqiijiyo in ninku halis uusan ahayn, dembiilaha ayaa sii daaya dadkii qafaashanaa. Waxaa soo baxday in bartilmaameedkiisu run ahaantii uu ahaa ninkan ilaa iyo bilowgii. Ninku keliya ma cabsan, laakiin xitaa wuxuu digniin u dirayaa dembiilaha oo ku saabsan snayberada dhismaha gadaashiisa. Dembiilaha si degdeg ah ayuu u qariyaa isaga oo arka snayberadu inay baxayaan. Taas markaas dembiilaha wuxuu ugu dambayntii dejistaa. Waxaa soo baxday in ninkani hore u xiray dembiilaha dhowr jeer. Xukun kasta wuxuu sii dheeraaday. Markan wuxuu baxay isagoo qorshaynaya inuu ka argoosto ninka. Kadib wuu soo saaraa kontaroolka fog isagoo qaylinaya inuu doonayo inuu la dhinto ninka, laakiin wuxuu arkaa ninku aan wax jawaab ah bixin. Tani runtii waxay ka xanaajisay dembiilaha. Ka hor inta uusan hadlaha dhammayn, wuxuu arkaa dhammaan saraakiisha SWAT oo hubaysan inay baxayaan iyo barkadaha badbaadada ee hoose ee dhismaha sidoo kale waa la saaray. Dembiilaha wuxuu dareemayaa in tani ceeb ku tahay darajadiisa dembiile, markaas ayuu weydiiyaa ninka sababta ay u baxeen. Ninku wuxuu ku leeyahay inuu hubiyo natiijooyinka shaybaarka ee jeebkiisa. Waxaa soo baxday in ninkani uu qabo kansarka sambabada ee halista ah. Dembiiluhu si farxad leh ayuu u qayliyaa taasoo ah cadaalad. Laakiin wuxuu arkaa ninku aan wax jawaab ah bixin. Tani runtii waxay ka xanaajisay dembiilaha. Ka hor inta uusan hadlaha dhammayn, wuxuu arkaa dhammaan saraakiisha SWAT oo hubaysan inay baxayaan iyo barkadaha badbaadada ee hoose ee dhismaha sidoo kale waa la saaray. Dembiilaha wuxuu dareemayaa in tani ceeb ku tahay darajadiisa dembiile, markaas ayuu weydiiyaa ninka sababta ay u baxeen. Ninku wuxuu ku leeyahay inuu hubiyo natiijooyinka shaybaarka ee jeebkiisa. Waxaa soo baxday in ninkani uu qabo kansarka sambabada ee halista ah. Dembiiluhu si farxad leh ayuu u qayliyaa taasoo ah cadaalad. Ninku si toos ah ayuu u sheegay inuu u mahadcelinayo fursadda uu u helay inuu naftiisa u hurto shaqada. Ninku si qarsoodi ah ayuu u furayaa gacanta isaga oo diyaar u ah inuu riixo kontaroolka dembiilaha.